xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Buuhoodle ayaa kalfadhigoodii koowaad ay yeeshaan ku doortay maayir iyo maayir ku xigeen cusub. kalfadhigan golaha deegaanka ee degmada Buuhoodle oo ka qabsoomay xarunta maamulka ee gobolka Togdheer ayaa shirkani gudoominayay xildhibaanka ugu daada weyn golaha deegaanka ee Buuhoodle kaasoo lagu magacaabo Nuur Cabdikariin, iyadoona ay goobjoog ka ahaayeen maamulka gobolka Togdheer, gudoomiyaha maxkamadda ee gobolka iyo sidoo kale xogayaha fulinta ee Buuhoodle. kalfadhigan ay ka soo xaadireen 12 xildhibaan oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Buuhoodle ayaa cod taagan garasho ay ugu codeeyeen Cismaan Yuusuf Axmed inuu noqdo maayirka degmada Buuhoodle, halka ku xigeenkiisana loo soo doortay Maxamed Aadan Xirsi. gudoomiyaha gobolka Togdheer Axmed Cumar Xaaji Cabdullaahi Xamarji oo ka hadlayay kalfadhigan ayaa ku tilmaamay mid taariikhi ah oo markii ugu horeysay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Buuhoodle ay si xorriyad isku doortaan isla markaana ay si xorriyad u doortaan maayir iyo maayir ku xigeen cusub. Buuhoodle oo Cismaan Yuusuf Axmed doono gudoomiyaha ku yahay maayir ku yahay odayga ku yahay maayir ku xigeen waxa idinku ah oo ah gudoomiyaha ku xigeenka golaha deegaanka ahna maayir ku xigeenka magaalada Maxamed Xirsi Aadan si hal dabala oo qof diidan lahayn intaan golayaal deegaan soo qabanayay waa labadii qof ee ugu faraha badnaa ee vote majority qof uu diidinaa yeelan qof ka aamusanaa yeelan si wadaradii tijaabada doorantay. maayirka degmada Buuhoodle Cismaan Yuusuf Axmed iyo ku xigeenkiisa Maxamed Aadan Xirsi oo kadib markii la doortay ka hadlay kulankani ayaa iyaguna u mahad celiyay maamulka gobolka Togdheer oo si weyn uga shaqeeyay qabsoomida kulankani, waxaana ay sidoo kale ballan qaadeen in ay ku shaqoon doonaan si cadaalad ah, iyagoona warkoodaasi ku sheegay in degmada Buuhoodle ay ka dambayso degmooyinka kale ee Soomaaliland isla markaana xilligan u baahan tahay in la hormariyo, iyagoona maayirka iyo maayir ku xigeenku warkoodaasi inay ku sheegeen inay soo kicin doonaan adeegyada horumarineed ee degmada Buuhoodle isla markaana ugu horeysiin doonaan nabadgelyo. deegaanka gobolka Togdheer dhammaantii wax garadkiisa, culimadiisa, ganacsatadiisa, uqaashiisa, salaadiintiisa in aanu horgalno oo aanu doono gobolkii Buuhoodle oo aanu keeno walbana uga dambaysa xagga horumarka, xagga nabadgelyada waa degmo dambaysa oo hadhay. waxaanu ballan qaadaynaa maanta annaga oo dhan xildhibaanadeedii haddii aanu isu nimid in aanu si mugle uga shaqayno oo u horumarino annagoo awoodda saarayna qaybta nabadgelyada. kalfadhigani oo kii ugu horeeyay yeeshaan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Buuhoodle ayaa ku soo dhamaaday jawi wanaagsan iyo safgarad, isla markaana waxaa xilligani golaha deegaanka ee degmada Buuhoodle hor yaalla arrimo badan oo u baahan wax ka qabasho. waa Cabsaaq Faarax Cabdullaahi, TV-ga qaranka, Burco.